wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer ayaa soo qaban qaabisay tartan ciyaareed dhexmarayay dugsiyada hoyga ah ee Xaaji Muuse Igare ee deegaanka Cali Ciise ee degmada Duruqsi iyo dugsiga hoyga ah ee Qoryaale. Ujeedada wasaaradda waxbarashadu ka leedahay tartanadan ayaa ah in la helo arday fayow oo ka badqabta balwadaha dhisan jir ahaan, maskax ahaan iyo cilmi ahaanba. Waana tallaabo horumarineed iyo jid wanaagsan oo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer u jeexday dhalinyarada. saraakiil iyo khubiro dhanka ciyaaraha ah oo horkacaya isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa tartankani qayb ka ahaa. sidoo kalena waxaa daawashadiisa la isaga kala yimid degmooyinka Dhoqosh, Riyo Xidho, Duruqsi ilaa Qoryaale, taasi oo ku tusaysa dadaalka iyo juhdiga wasaaradda waxbarashadu la dul joogto dhalinyarada. isduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa sheegay in wasaaraddu sii wadi doonto tartamada ciyaaraha iyo aqoontaba ee deegaanada miyiga ah si loo tayeeyo tababaro dhalinyarada miyiga wax ku barata. waxaan rajaynayaa labadiina tiim in laba tiim oo saaxiiba noqon doontaan haddii la yiraahdo kulamadaasuna sida uu istuhu sheegay sida aanu u bilownay baan u wadayna haddii la yiraahdo degmooyinka iyo dugsiyadaba aad iyo aad waxaan ugu dadaali doonaa inaan u qabano ciyaaro si dadku ay uga dhaxbaxaan kala qaybsanaanta balwada xumaanta kale ee nolosha ku dhex jirta mujtamaceena si uga dhaxbaxaan oo ay noqdaan dad isku maaragtay tiirsan dad jir qura ah baan doonaynaa soo saarno doonaa dhalinyaro hal jir qura ah oo marka mid suulku xanuuno ka kale uu xanuunsado inaanu soo saarno ayaan doonaynaa dhalinyaro isku tiirsan isu damqanaysa dalkan iyo dadkan u adeegta. isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi ayaa tilmaamay muhiimadda ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada. wasaaradda oo aad iyo aad u jecel in ay dhiirigeliyaan dhalinyarada gobolada Togdheer iyo degmooyinkaba sida iskugu xidhi lahaayeen. annaguna waxaan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo garabkii isboortiga u nahay waxa naga go'an xilka loo idmay meel kasto ay ku nool yihiin iyo degmo kasta ay joogaan ciyaartooyga inaan iyagana isdhexgelin doono. gudoomiyayaasha Duruqsi, Dhoqosh, Qoryaale, odayaal, waxgarad, cuqaal, gudiyada iskuulada Xaaji Muuse Igare iyo Qoryaale ayaa ka waramay muhiimadda kulamadani u leeyihiin dhalinta iyo degmooyinka, waxaana ay si weyn uga mahadsanteen isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. maanta waxaynu helay jaanis wacan oo aynu isku baranay oo ardada ay isku baratay kubadda kaliya maanan ka faa'iidina waxa weeye waxa ilaa intaanu ka soo baxnay Burco ilaa iyo inta arday wax jirtaan deegaanka baharaw arag waxaan runtii tilmaamayaa oo oran karaa ciyaarta maanta meesha ka dhacday ciyaar xiiso labaad waxaan wanka siiyay Qoryaale sida loo siiyay koobkaba. degmada aanu doonaynay inaanu noqono dugsiga aanu rabnay inaanu mataanaha noqono Qoryaale oo aanu doonaynay inaanu mataanayno labada dugsi ee Qoryaale iyo dugsiga hoyga ah ee Xaaji Muuse Igare. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta oo fududeysay ciyaartan inay ka dhacdo halkan oo ay u horeyso wasaaradda waxbarashada. hogaankana la idinka dhex dooran ciyaarta la idinka dhex wada ka Cali Ciise xariifka ay ka Qoryaale xariifka ah qaran bay u ciyaarin doonaan waa la idinka dhex baaraya. waxaa tiin haddii Ilaahay ka dhigo mustaqbalkii dalka waxa la idinka baahan yahay anigu inamadan u baninta oranaya. waxaanu ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magaca dugsiga sare hoyga Qoryaale oo aan ka mid ahay gudidiisa Xaaji Muuse Igare iyo degmada Duruqsi iyo Cali Ciiseba waxaan anaguna diyaar u nahay waa idinka mahad celinaynaa qaabilaadiina. sidoo kalena waxaanu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo inaanu gobol xaad idinku samayno degmadii Qoryaale. madaxweyne gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha waxbarashada labadaaba waa gobolku ka mahadnaqaadno ogow Ilaahayna ogow salaam. tartan ciyaareedkan iyo labada kooxoodba soo bandhigay kubad hufan oo fiican oo ilbaxnimo ku jirto ayaa guushu ku raacday kooxda ku ciyaaraysay dugsiga hoyga ee Xaaji Muuse Igare ee deegaanka Cali Ciise, halkaas oo ugu dambeyntii lagu guddoonsiiyay koobabkii iyo abaalmarinihii kala duwanaa. Absaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga qaranka Somaliland, Burco.